soo dhawaad saaxiibayaal dowladda qatar ayaa waxay si rasmi ah u diiday codsi kaga imaaday dowladda Mareykanka kaas oo ahaa in qatar ay ciyaarto doorkeedii dhexdhexaadineed ee Iran iyo Mareykanka haddaba qatar maxay u diiday sababta ay ugu cudurdaartay maxayse tahay maxayse ka cabsi qabtaa qatar haddii ay dhexdhexaadintaasi bilowdo in dalkeeda uu ku dhici karo warbixintan ayaynu ku eegi doonaa dowladda qatar ayaa si rasmi ah u diiday codsi uu Mareykanku ku dalbanayay in door firfircoon qatar ay ka qaadato dadaalada dhexdhexaadinta u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran sida ay xaqiijiyeen ilo diblomaasiyadeed oo ku dhow labada dowladood wararka ayaa sheegaya in Mareykanku uu dhawaan la xiriiray Doha isagoo ka codsaday inay dib u bilowdo doorkeedii hore ee dhexdhexaadinta maadaama qatar ay horay uga soo shaqeysay xalinta khilaafaadyo badan oo gobolka ah oo ay ku jiraan wadahadaladii lala yeeshay Taliban iyo heshiisyo maxaabiis dhaafsi ah si kastaba ha ahaatee mas'uuliyiin ka tirsan dowladda qatar ayaa tilmaamay in xaaladaha hadda jira ay aad uga duwan tahay tii hore isla markaana aysan ku habboonayn in Doha ay si toos ah u dhex gasho xiisadda sii kordhaysa ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran haddaba waxaa isweydiin mudan maxay tahay sababta qatar ay u diiday ilo ku dhow dowladda qatar ayaa sheegaya in go'aankan uu salku ku hayo dhowr arrimood oo muhiim ah mid koowaad waa xiisadda sii kordhaysa ee gobolka khilaafka Mareykanka iyo Iran ayaa maraya marxalad xasaasi ah taas oo halis gelin karta dhexdhexaadiyaha haddii ay xaaladda ka sii darto midda labaad waa isku dheelitirka xiriirka diblomaasiyadeed qatar waxay xiriir wanaagsan la leedahay labada dal waxayna ka baqaysaa in ku lug lahaanshaheeda arrintan ay dhaawici karto dheelitirkaasi mudnaanta arrimaha gudaha iyo gobolka Doha ayaa hadda diiradda waxay saaraysaa arrimo kale oo istiraatiiji ah oo la xiriira amniga iyo dhaqaalaha waa sababaha la dhigi karo qatar waa u diiday in ay door dhexdhexaadineed ay ka qaadato khilaafka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran haddaba jawaab ma laga filan karaa Mareykanka ilo Mareykan ah ayaa muujinaya niyad jab ku aadan go'aanka qatar maadaama Washington ay u aragto Doha inay tahay lamaane muhiim ah oo lagu kalsoonaan karo marka ay timaado wadaxaajoodyo adag si kastaba Mareykanku wali ma uusan shaacin qorshe kale oo rasmi ah oo lagu xalinayo xiisadda kala dhaxaysa Iran haddaba diidmadan ee qatar ay diiday dhexdhexaadinta iyo codsiga Mareykanka saameyn ku yeelan kara gobolka falanqeeyaasha siyaasadda iyo arrimaha amniga ayaa aaminsan in diidmada qatar ay muujinayso sida ay u adkaynayso in la helo dhexdhexaadiye lagu kalsoonaan karo xaaladda hadda jirta waxaana sidoo kale la tilmaamayaa in tani ay kordhin karto qatar iyo isfahan la'aan ama xitaa isku dhac toos ah oo dhexmara labada dal ugu dambeyntii go'aanka qatar ayaa iftiiminaya caqabadaha sii kordhaya ee ku gadaaman dadaalada nabadeed ee gobolka bariga dhexe iyadoo Doha ay door muhiim ah ka ciyaarayso xalinta khilaafaadyo hore haddana xaaladda hadda jirta ayaa u muuqata mid ka adag taas oo keentay inay ka gaabsato ka qaybgalka dhexdhexaadinta u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran waxaana la filanayaa in maalmaha soo socda ay soo baxaan dadaalo kale oo diblomaasiyadeed iyadoo indhaha lagu hayo sida xaalku isu bedeli doono ee gobolkan bariga dhexe